kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal is arag maqal wanaagsan meel kastood caalamka naga daawanaysan ama aad nagala socotaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono horumarka ka socda magaalada Jigjiga oo xarun u ah dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya daawadayaal tan iyo markii la sameeyay siyaasadda horumarineed ee magaalooyinka uu ka kooban yahay deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo loo sameeyay maamulo ayaa waxa ay ahayd mid horumarkaas uu yahay mid ku socda qaab xawli ah magaalooyinkaas oo kala ah magaalada Jigjiga magaalada Dhagaxbuur magaalada Qabridahar iyo magaalada Goday dugsi lagu baraaro winaha kasimano waxarun balxiiska baayuhu aanay ka daaline daawadayaal barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa tan iyo markii la sameeyay maamulka magaalada Jigjiga horumarka kala duwan ee dhanka mashaariicda wadooyinka leerka iyo dhireynta laga hirgeliyay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga degmooyinkii hareeyay kuwa maanta lagu daray oo yadihatay weeyo Jigjiga waa darnabade daawadayaal magaalada Jigjiga mar waxay xarun u tahay dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya marna waxay xarun u tahay gobolka Faafan ee deegaanka Soomaalida marna waa maamulka magaalada Jigjiga marna waxay xarun u tahay degmada Jigjiga afarta oo isbiirsatay ayaa waxa ay dardar gelisay in horumar ballaaran oo dhinacyo kala duwan laga hirgeliyo xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxa magaalada Jigjiga oo ruuxa ka maqnaa muddo ku dhawaad 4 sano markii uu soo gaaro waxa uu dareemayaa horumar dhinacyo kala duwan taasoo ah mashaariicda kala duwan ay hirgeliyaan qaar kamid ah jaaliyada dibadda bulshada deegaanka iyo waliba tan dalka waxaana mashaariicdaas kamid ah hoteelo waaweyn oo casri ah oo laga hirgelinayo magaalada Jigjiga iyo ruga ganacsi ah iyo shirkadaha kala duwan ayaguna laga hirgelinayo magaalada Jigjiga وحفيظ ونقول دونا شركتها واوين وحنا شركتها اسكمد شركتها سودجيا بابورتا اسلامركانا دوفيا اي شركده كله oo iyaguna ku wajahan xagga wax soo saarka qalabaynta dhismaha iyo mashaariic kala duwan oo shirkadahaas ay ku guda jiraan waxaana kamid ah shirkadahaasi kuwa soo dejiya sharaabka kala duwan ee ka keena dalka gudihiisa iyo waliba dibadiisa dushada abudahay nabado kasto la eegaba darajad ku leedahay haddaba muuqaalada kala duwan ee xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga xagga maalinkii markaad u kuurgasho isla markaana aad eegto dhinac walba waa mid aad ku soo jiidanaya dhismayaasha aad ka quruxda badan ee laga hirgelinayo magaalada Jigjiga taasoo aad ku soo jiidanaysa isla markaana u jecleysanayo shakhsi kasta oo ku cusub ama muddo ka maqnaa magaalada Jigjiga waxa kaloo kamid ah muuqaalka habeenkii ee magaala madaxdan deegaanka Soomaalida ee Jigjiga oo caasimad u ah deegaanka Soomaalida ee Itoobiya taasoo indhaha ay qabanayaan nalal kala duwan oo kala cayn ah taasoo ku haboon xilliyada aweysinka ah waxaana iftiinka leerka habeenkii magaalada Jigjiga uu gacan weyn ka geystay isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo bulshada ku caweynaysa rugaha kala duwan ee magaalada Jigjiga dhanka kafeteriyada iyo rugaha kale ee loo tago ganacsiga horumarkiiso niman dayacayniyo maamul suban loo diro socod ma celiye
haddaba filitaanka magaalo madaxda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga oo ka kooban 10 xaafadood oo waaweyn ayaa waxay isu jiraan baaxad aad u weyn waxaana ka socda dhismayaal ay samaysanayaan bulshada deegaanka dalka iyo waliba dibadda oo ah guryaha dadku ay degan yihiin taasoo qayb ka ah bilicda magaalada Jigjiga waxa kale oo kamid ah dhismaha wadooyinka laamiga ah ee dhexmara magaalada Jigjiga iyo wadooyin kale oo iyaguna ah kuwa dhexmara xaafadaha dhexdooda iyo xafiisyada kala duwan hortooda oo laga sameeyo ama la dhigayo dhagaxa loo yaqaano cobblestone oo ay goglayaan shirkado tababar ka helay xafiiska maamulka magaalada Jigjiga iyo kulliyadda tababarka farsamada gacanta xirfadaha oo iskaashanaya oo soo saara kumanaan qof oo markaa la baray goglitaanka dhagaxa loo yaqaano cobblestone qoristiisa taasoo shirkadahaas haatan dhameystireen wadooyin badan oo magaalada Jigjiga halka wadooyin kalena ay ku guda jiraan waxaana barbar socda shaqooyin kale oo ah xagga dhismaha goobaha isgoysyada farshaxno kala duwan oo lagu sameeyo goobahaas oo aad ku soo jiidanaya markaad eegto farshaxnada aad u kala duwan ay ku sameeyaan shirkadahan markaa qandaraaska ka helaya maamulka magaalada Jigjiga waxa ku baxay lacag malaayiin ah oo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ugu talagashay horumarinta magaalooyinka maadaama laga hirgeliyay deegaanka Soomaalida magaalooyin ay kamid yihiin magaalada Jigjiga Dhagaxbuur Qabirdaar iyo magaalada Goday haddaba wadayaal magaalada Jigjiga ayaa maalin walba waxa soo gaara wufuud kala duwan dadka maalgashiga sameynaya ee jaalida dibadda iyo bulsho kale oo ka timaada meelo kala duwan waxana maalin walba ay ka soo degaan garoonka caalamiga ah ee Garadwilwal dalka horumarkiisu liman dayacayniyo maamul suuban loo diro ibu socod ma celiye goobaha aadka u soo jiidanaya dadka ka imanaya dalka dibadiisa ama jaaliyada dibadda ee imanaya xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga goobaha ugu horeysa ishoodu ay qabanayso waxa kamid ah buurtan caanka ah ee lagu magacaabo Karamardha oo ah buur caanka ah deegaanka Soomaalida ee Itoobiya kuna taala xarunta deegaanka Soomaalida ee duleedka magaalada Jigjiga haddaba daawadayaal maadaama ay sii fidayso magaalo madaxda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga isla markaana kororka dadku uu yahay mid maalinta ka dambaysa soo biiraya ayaa xafiiska maamulka magaalada Jigjiga waxa markii ugu horeysay uu dhaadhiciyay shaqaalihii ka howlgali jiray xarunta adeeg bixinta taasoo dib iyo kadeed ku ahayd bulshada u imanaysa inay ka helaan adeegyo kala duwan waxa markii ugu horeysay shaqaale loo dhaadhiciyay 10 xaafadood ay ka kooban tahay magaalada Jigjiga taasoo xaafad walba xarunteeda looga adeegyo kala duwan oo bulshada loogu diyaariyay in lagu siiyo waxana adeegyadaas kamid ah sameynta warqadaha fasaxa ah ee dhismayaasha kala duwan iyo sharciyeynta xagga dhulka waxa kale oo kamid ah adeegyada la dhaadhiciyay sameynta teesaraha ama warqada aqoonsiga ah iyo tan dhalashada shaqooyinka loo dhaadhiciyay xaafadaha waxa kale oo kamid ah warqadaha canshuurta amba dakhliga iyo xafiiska horumarinta shirkadaha yaryar ee ganacsiga halkaas oo deymaha laga siiyo iskaashatooyinka wax soo saarka ay u dhameystirayeen arrimaha sharciga lama soo koobi karo shaqooyinka aad ku farax badan ee ku xidhnaa xarunta adeeg bixinta ee magaalada Jigjiga oo haatan bulshada ay ka helayaan xarumaha ama xaafad walba ay ka helayso adeegi halkaas oo shaqaalihii kala duwanaa ee hawlaha qabanayay goobaha lagu dhaadhiciyay haddaba waxaan arrimahaas aan wareysi kala yeelanay maayarka magaalada Jigjiga Suldaan Maxamed Xasan waxaanu naga warbixiyay hawshan dhaadhicinta ee shaqaalaha loo dhaadhiciyay 10 xaafadood ay ka kooban tahay magaalada Jigjiga aad iyo aad u mahadsantihiin sida fiican ay igu soo booqateen xafiiska maadaama aad qayb libaax mar walba aad ka qaadataan horumarka ka socda deegaanka gaar ahaan magaalooyinka midda kale annagu ka duulayna qorshayaasha horumarineed ee u yaalla maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxaan adeegyadii ugu muhiimsanaa ee ay bixin jireen xafiisyada maamulka magaaladu u dhaadhicinay qabaliyada hoos yimaada maamulka magaalada iyo one stop centeradii ka fura 10 xaafadood oo ayaguna aan functional ka dhignay si shacabku helaan adeeg hufan oo degdeg ah hogaaminta maamulka magaaladuna u furiyaan siyaasadda guud ee ku wajahan horumarinta magaalooyinka iyo tan deegaankaba haddaba si taasi u hirgasho ayaan xulanay goobihii adeegyada loo dhaadhicin goobaha adeegyada la dhaadhicinayo lagu furin lahaa shaqaalihii adeegaas furin lahaa iyo qalabkii lagu fulin lahaa hawshaas waxaan maamuladii 10 xaafadood iyo shaqaalihii la dhaadhiciyayba waan u diray experience sharing dir dhabo kadibna waxay noo soo bandhigeen
waxyaabihii ay ka soo faa'iideen oo dhan waxayna ballan qaadeen inay dhaqan gelinayaan waxyaabihii ay khibradda ku soo heleen oo dhanba iyadoo adeegyada iyo shaqaalaha la dhaadhiciyeyna ay ka mid yihiin kow xafiiska adeeg bixinta waxaan ka dhaadhicinay 3 waaxood waaxda dhulka oo aan ka dhaadhicinay 5 qof waaxda fasaxa dhismaha oo ayaguna aan ka dhaadhicinay 5 ruux waaxda arrimaha bulshada qaybta dhalashooyinka iyo guurka oo ayaguna aan 5 qof ka dhaadhicinay 3 waaxood oo hadda ka hor xafiiska maamulka magaalada ku shaqayn jiray ayaan qabaliyada geynay waana 3 waaxood ee ugu adeega ballaaran weeyaan xafiiska adeega marka la eego waxa kale iyaduna inta badan dadku xaggan ay imanayeen fasaxa shatiyada oo uu bixiyo xafiiska gaadiidka ganacsiga oo mar walba dhibaato badan ay ka jirtay inay dadkii hal mar ay xafiiskii gaadiidka ganacsiga inay hal mar ka wada qaataan shatigii oo muddo loo qaban jiray muddadaasna haddana dee laguma dhamaystirin marka fasaxii shatiyada heer qabalay baa marka hadda ayaa lagu bixiyaa xafiiska ganacsiguna 5 qof ayuu dhaaliciyay oo xubnihii shatiyada ka bixin lahaa qabalayada waxaa kaloo iyaduna xafiiska MSC-ga ama shirkadaha yaryar iyo iskaashatooyinka iyaguna aanu adeegii one stop centerada oo iyaguna hadda ka hor aan shaqadooda functional ahayn ayaan iyaguna functional ka dhignay si ay u shaqeeyaan shaqaalihii adeegana waan ku dhaadhicinay midkanaayde one stop centerada free laha iyagoo manaha xubnaha la dhaadhiciyeyna ay one stop centerada ay ku shaqeeyaan marka waxaan leeyahay runtii arrintan dhaadhicinta qabaliyada waxay ku soo aaday waxay ku soo beegantay waqtigu maamulka magaaladu diyaar garow adag ugu jiro xuska 8aad ee maalinta qowmiyadda Itoobiya ee lagu qabanayo magaalada Jigjiga waxaa kaloo dhaadhicintan maamulka qabaliyadu ay ku soo aaday waqtigu maamulka magaaladu Jigjiga ugu jiro diyaar garow adag doorashooyinka qaran ee magaalooyinka iyo qabaliyada oo diiwaangelintoodii bilaabatay 22 bishii Taasaas meel fiican maraya saad ogtiin dhibaatooyin badan ayaa runtii xafiiska maamulka magaalada Jigjiga yaa ka jiray dhinaca adeeg bixinta maadaama ay dhammaan qabaliyadii 10 qabale dhammaantoodba subaxii ay xafiiska iskugu wada imanayaan nidaamkii loo kala qaabil lahaa iyaguna adeegii ay u baahnaayeen ay u heli lahaayeen xafiiskuna istiraatiijiyadii guud ee horumarinta magaalooyinka sidii u fulin lahaa dhibaato badan baa ayaa naga qabsatay inaad ama shacabkii qaabisho maalin walba 7 maalmoodba waxay noqotay in qaabilaad shacabuna ay noqoto oo warbixinadii iyo qorshayaashii iyo checklistiyadii iyo xafiiska in macnaha la qaban waayo qaabilaadda dadweynaha darteed marka taas baa marka go'aansanay in ilaa loo dhaadhiciyo qabaliyada adeegyada halkan loogu imanayo in hawlaha u yaalla maamulka magaaladu aynan aan qabsoomi karin oo baalgudhay aan laga qaban karin taas marka noo kaliftay runtii inaan u dhaadhicino maamulka iyo adeegaba qabaliyada sharciga ayaana noo fasaxaya inaan u dhaadhicino qabaliyada nidaamka decentralizationka ayaa qeexaya marka runtii intii aan u dhaadhicinay qabaliyada wax badan baan iska kay bedelay dad qorsho iyo checklist iyo nidaam ku soconaya ayaanu madqanay ayaanuna marka maaha madqanay midda kaliya lagu filin karo xafiiska dad artaan cidii doonto waa firaaqo laakiin hadda kahor ma suuragal ma ahayn macnaha in aad shaqo kale aad qabato inaad dadweyne iyo shacabun aad qaabasho mayne
intaa kadib ayaan waraysi waxaan la yeelanay madaxa xafiiska maayarka magaalada Jigjiga mudane Cabdicasiis Mahad waxa isna uu nooga warbixiyay waxa ugu yeeray jigjigada cusub ee haatan taasoo isa soo taraysa bilic ahaan mashaariicda kala duwan iyo dadka maalgashiga ku sameynaya isagoo warbixintiisana noogu daray maadaama sanadkan lagu qaban doono xuska maalinta qowmiyadaha shucuubta ee dalkan Itoobiya diyaar garowga ballaaran ee loogu jiro sidii loo dadajin lahaa dhammaan mashaariicda kala duwan sida hoteelada rugaha ganacsiga goobaha dalxiiska si markaas ay uga qayb qaataan soo dhaweynta loo sameynayo wufuudda aadka u faraha badan ee gaaraya kumanaanka kun ee qof ee ka qayb gelaya xuska maalinta qowmiyadaha shucuubta ee dalkan Itoobiya oo lagu qaban doono xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga fursadan hadda jirta ee maalgashiga ah ay dhici karto 5 sano soo socota inaan la helin waxa ahmiyada la siinayaa isla markaasna xaqiiq amaanta in caasimadeenu ay ku socoto xawli fursadani marka waxaan ugu baaqi lahaa saddex arrimood in laga qayb galo horumarka deegaankeena ka socotay caasimada Jigjiga maanta in waliba waxaan la hadlayaa dadka ku dhaqan qaaradaha caalamka ama ha noqdeen kuwa deegaankeena u dhashay ama ha noqdeen kuwa ajaanib ah isla markaasna daneynaya horumarka deegaankeena fursadan waa fursad aad qaali oo ah marka walaalayaal waxaan idin dhihi lahayn maalkiina meesha amnigeeda xajinaysa waa halkan oo meesha aad ku halayn kartaana waa halkan marka adigana sharaf bay ku tahay deegaankaaga hadaad maal gashato deegaankaagina sharaf bay u tahay hadaad maal gashato taariikhdana meel baad ka geli waa kan mar kale Cabdicasiis Mahad madaxa xafiiska maayarka ee magaalada Jigjiga oo fariin u diraya dhammaan shirkadaha kala duwan iyo dadka maalgashiga ku sameynaya xarunta deegaanka iyo hareeraheeda si ay u dadajiyaan mashaariicdan isla markaana shaqaalahooda ay fahamsiiyaan ama ay baraan habka adeega casriga ah ee markaa la siinayo dadka macaamiisha ah ee imanaya magaalada Jigjiga marka deegaankeen haddana waxa iyadana aan bulshada aan fariinteeda ugu dambaysa u far lahaa inay ka dhacayso xuskii sanad guurada 8aad ee maalinta qowmiyadaha ee shucuubta Itoobiya marka waxaan dhihi lahaa laba arrimood ayaan far lahaa in shakhsi kasta oo caasimada ku dhaqan oo xil iska saaro mas'uuliyadna iska saaro sida uu noqon lahaa qof waajibaad ka saaran yahay sida uu qaabil lahaa shucuubta dalkeena ku dhaqan ee aadka inoo jecel aad bay inoo jecel yihiin runtii waan la soo tababaranay anagu waxaan jeclaan lahaa in xataa dad ka martida ku jooga caasimada ee deegaanada jeerkan ka mid in la baro sidii ay soo qaabil lahaayeen martidaas ku dhaqan daafaheena dalkeena dastuurkeena wuxuu dhigayaa dhaqamo fara badan inay ka jiraan dalkeena marka iyadoo loo madax baneeyay cid kasta dhaqankeedii in dhaqan kasta la soo dhaweeyo dhaqan kasta in la soo dhaweeyo isla markaasna laga qaato experience ama khibrad looguna diyaar garoobo in muddada yar ee la inala joogo in lagu soo dhaweeyo si xusuustooda iyo qalbigoodaba deegaanka Soomaalida jeclaan iyo xiise ay u soo hiloodaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba isla markaasna taariikhdooda ay ku daraan sida inaguba ay nagu darnay sida ay noo soo dhaweeyeen inoo qaabileen inoona jecel yihiin mar kasta waxaan la hadli lahaa dad kale hoteelada dad kale meelaha munaasabka ah in ay iyagana shaqaalahooda ku si tababaraan deegaan kasta dhaqanka uu leeyahay deegaanka Binshaangulka deegaanka Gambeelaha deegaanka Tigreega deegaan kasta ayu deegaan oo ku talagalaan sida iyagana martida u qaabil lahaayeen waxaan la hadlayaa dad kale hoteelada waaweyn hoteelada yar iyo goobaha la isugu yimaado inay dadkani haba ku qaateen sawirada ku galeen ama dalxiis ahaan aanu geyno inay dadkaasi dadka hoteeladooda ka shaqeynaya iyo iyaguba ay tababaro si qaataan sidii ay dadkan u soo dhaweyn lahaayeen isla markaasna ugu diyaar garow lahaayeen xuskan waayo mas'uuliyad baa ka saaran anagana mas'uuliyad baa naga saaran iyagana waa dad aad inoo xiiseynaya dhinaca bilicda iyo dhinaca nadaafada waxaan dhihi lahaa wax fiican iyadana halay naga daydo oo dadkan ay xiiseynayaan isla markaana inagu maadaama in 100% dad islaam nahay waxa loo baahan yahay iyadana in nadaafadii
aynu ilaalino maadaama diinteenu ina farayso dhinaca iyadana waxaan dhihi lahaa oo muhiim ah dhinaca amniga hoteelada in hay'adaha amniguna ay xooga saaraan maadaama inuu ku nabadyaacana maalay sanadan ugu dambeeyay nabadgeliyo haddaba daawadayaal waxaan booqanay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Jigjiga annagoo u booqanay xaafad xaafad si aan markaan u eegno maamulka xaafadaasu adeega bulshada uu siinayo halkana waxaan wareysi kula yeelnay qaar ka mid ah shaqaalahan loo dhaadhiciyay xaafadaha magaalada Jigjiga inay xarunta xaafada xafiisyada laga sameeyay inay ku bixiyaan adeeg hadda ka hor ay bulshada u tagi jireen goobahaas waxaana isbarbardhig ku sameynayaan waqtiyadii hore iyo waqtigan la soo dhaadhiciyay jooga santarkan xaafada shanaad iyo xaafada lixaad ee dhinaca farsamada fasaxa dhismaha iyo xujadaha iyo wax walba hadda nooc walba adeeg dadku u baahdaan hadda halkan uman soo afjarnaa oo ku dhameystirnaa qofku codsigu soo qoranaya filkiisin buu la imanaya toos oo loo raacaya hawshii sida lagu soo qabanaya laba cisho wax ka badnayn baa markaa adeegii qofkii lagu siinaya hadda ka hor laakiin muddo 2 sano ilaa 3 bilood inay xataa ku qaadato qofka ayaan waxba ku ahayn oo de mas'uuliyada iyo 4 engineer ama 3 engineer baa hadda ka hor adeeg ayaa la marin jiray faylka waxa suurtagal ah in muddadaas inuu faylku xataa dhaxda kulumaba imika laakiin qofkii ma faylka la imanaya toos codsiga soo qornaya oo la raacaya awshiisi 2 cisho gudaheega in adeegii lagu gaarsiiyo ayaa suurta gashay marka dadweynuhu laftigooda aad bay hadda hawshan ay ula dhaceen hadda waxaad arkaysaa waa faylal waa faylasha weegan aan la soo baxnay weeyaan marka ilaa 15 fayl baan hadda weegan oo kale aan adeeg siinay 7 cisho ee ugu horeysay hadda marka dadku wali labay qabsan oo may dakameeda dhicin moogta manana wada maqal dadka qaarkood marka hadda laakiin intii aragtay iyo inta ogiba aad bay ula dhacsayn hawshan adeegan waxaan u dirayaa dadku inay xujadaha iyo fasaxyadii ay hadda ka hor ay ma taqaanaa waayeen ay ka qanceen inay soo doontaan ay hadda 2 cisho gudaheeda ay ku qaadan karaan baan u dirayaa oo 2 cisho 3 cisho waxaan ka badnayn qofkii inuu adeegiisa ku helayo ayaan hadda meesha u diray oo dhismayaasha sharci darrada ay ka wadeen ee ma taqaanaa muddada markay ku noqdaan ay ka caajisaan ay iska bilaabanayeen ay meelaha lacagaha laaluushka ay ku bixinayeen inaanay bixinay cashuurta dawladda intay u soo hooyaan ay fasaxi qaataan oo nidaamkooda iyo dhulkooda iyo xudana sharcigi waafajiyaan ma soo jeedinaya dad waxaan ahay xubin kamid ah shaqaalaha MC Council wakaalada horumarinta shirkadaha yaryar shaqaalaheedan kamid ahay waxaan dhiski ka ahay xaruntan hadda aan joogno ee MC waan dhiski ka ahay marka waa la soo dhaadhiciyay waxa la soo dhaadhiciyay qabalan zero soosti inaan u adeego bulshada la soo dhaadhiciyay xaruntan shaqooyin badan bay qabataa shaqooyinka ay qabato waxa kamid ah shirkadaha yaryar oo ay dhisto oo buugga xiroosaadka ay siiso waxa kamid ah warqadii shahaadadii oo ay siiso shirkadaha yaryar waxa kamid ah xaruntan shaqada ay qabato ee bulshada ay u qabato marka ay dhisto shirkadaha yaryar dabagal bay ku samaysaa oo soo xaqiijisaa BDS bay u baxdaa way soo xaqiijisaa marka in shirkadan ay shaqeynayso iyo inayna shaqeynaynin bay soo xaqiijisaa waxay kale qabataa xaruntani bulsho aad u badan bay fursado shaqo u abuurtaa bulshada waliba dan yartaa ma garanaysaa ay fursado shaqo u abuurtaa way diiwaan gelisaa kadibna waxay fursadaha uga raadisaa xafiista ay xiriirka la leedahay bahwadaaga ay yihiin sida technicalka oo kale TFEDka oo kale MC-da heer deegaan oo kale baan fursado shaqo uga raadinaa bulshada danyarta shirkadaha yaryar markii la leeyahay waa 2 qaybood oo shirkadaha yaryar iyo kuwa aadka u sii yaryar labada qaybood bay isu daba yaalaan macnaha shaqada aan qabano waxa weeyaan shirkadaha yaryar waa dadka loo baahan yahay in ma garanaysaa la gacan qabto oo ma garanaysaa laga saaro nidaamka saboolnimadka ay ku jiraan si ay ayagu u taabagalaan marka wax allaale wixii shaqada ay ku qaban lahaayeen ma garanaysaa sida sharciyeyntooda kale shahaadada siinteeda kale xaqiijintooda kale dabagalkooda kale tala bixinta oo kale qaabkaasaan ma garanaysaa wax ugu qabanaa dalka horumarkiisa niman dayacayniyo maamul suban loo diro socod ma celiye
الله مشي عبد الرحمن قيبت الدخلي أنا هاي سيبا كاشير دا قيبت الدخلي أكو قرن أوكي وحنا نرى لها هذا دادي عندهم قبل أيضا لو دادي كل ياد بمهم نوقتها هاي صوبت واجي هروح شرتي قيبتن هذا الدخلي جو كله طبعا قبله بي قبل هاد كاشير دي وشرتي صوبت طبعا كان قبله وشريساي وايو طبعا قف كبدن بسود الاستاجي هذا ما دام ولكن لو سو دادعيه قبله هذا waxaa dhici karta injineerkii inuu si fudud ugu soo qabto kaashiyarada ay ka qabato kadibna hawlaheeda saa loogu fududeeyo marka walaa waxaan oran karaa waa horumar aad u weyn oo gaadhnay kullay inaan ku sii wadnana aad baan ugu rajaynahay sababta hadda qaybahan u jiro waxaa kamid ah dakhliga ganacsiga shirkadaha yaryar iyo qaybta dhalashada iyo qaybaha dhulka marka wallahi waxa la oran karaa dadku isma gaadhaan si fududna way u qaataan hawlahooda si fududna way ula tagaan marka aad baan ugu faraxsanahay dhihi karlaha qofkii in kuyuba ay dhacdo 10 ka qabale maadaama loo wada shaqeynayo qofkii maanta 8 yimid inuu 12 ka tago laakiin hadda maadaama qabale loo dhaadhiciyo qofkii hadda ku yimid 8 oo kale in 8 iyo barka bayna ku gaadhin isagoo taagan inaad hawshiisa soo fududeyso marka waxaan oran karlahaa tana aad iyo aad uga muhiimsan intaa kadib ayaa qaar ka mid ah bulshada aan ku kulanay xaafadaha magaalada Jigjiga oo gaar ahaan xarumaha laga sameeyay xafiisyada oo adeeg u yimid ayaan wax ka weydiinay sida ay u arkaan shaqooyinkan loo soo dhaadhiciyay iyo waliba adeega haatan ay ka helaan waxaana qudhigooda isbarbar dhigayaan waqtiyada hore ee xafiiska maamulka dawladda hoose ay u tagi jireen adeeg ay u baahan yihiin iyo maanta ay ku heleen xaafadooda sida ay u arkaan waxaan deganahay waa qabalayga Sirosoosti xaafadda saddexaad soonka afraad baan deganahay adeega halkan aan ka qaadanayno si fiican buu socdaa waxa weeye adeegu kolka hore filooyin dhaadheer baa la gali jiray dhib badan baa la arki jiray haday taysara tahay haday dhalashada tahay haddii ay tahay maaragtay xujadaha kale haday tahay leesamada ganacsiga oo kale waxa la gali jiray filooyin dhaadheer baa la gali jiray laakiin hadda maanta ilaahay mahadi waxa jirta in aan kuyul arkayn oo mid walba iyadoo ku si talaba aad u imanayso saada ruuxa ugu timaado adeega hore ka sii qaadanayso shaqadaadii aadan ka habsaameyn waxa jirta hadda xafiisyadan meesha ka shaqeynaya waad aragteen si fiican bay u shaqeynayaan wixii aad uga baahato dhan marka waad sii qaadanaysaa doorashadii oo kale halkan iyaduna ka socota kaarkii la isma taagayba de kuyugi dheeraa ee bergii hore la geli jiray ma jirto had wax kuyuud galaysaa ma jirto horay baad ka sii qaadanaysaa kaarkaaga aan taxi u raacin bulshada aad bay uga mahadnaqaysaa meel aan taxi u raacin oo adeeg gurigaaga ka soo taasay hore ka sii qaadanaysaa wix adeeg ahayd u baahato noocay dooni ma ahaatee aad u balaaran uga soo muujinaynaa waxaan ahay qurba joogta ku nool dalka Australia dalka dibadiisa waxaan u baxay dadkii ka baxay baan ahay 1982 muddo badan ayaan dalka ka maqnaa xaaladda aan maanta la soo kulmay oo kala soo kulmay dawlad deegaanka Soomaalida ee dalkan Itoobiya iyo wixii aan kaga tagay waagii hore wax badan baa u dhaxaya waxaan soo laabtay oo ku imi markii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku noogu yimaadeen Australia ay nacasumeen wax qabadka halka ka socda iyo sida hawlu u socdaan anigoo marka ka shaqeeya media aniga ruuxadaydu waxa aan isiri tag dhulkii waxa ka socda iyo wixii waftiga idin yimi sheegeen soo arag markaan imi oo sabab ka soo degay haddana u soo gudbay Jigjiga waxaan la kulmay wada shaqayn dad dhalinyaro ah furfuran wax qabadkooda waxyaalaha aan aad ula yaabay waxa weeye xafiisyo badan baan tagay sida xafiiskan maanta joogo oo dawladaha hoose iyo maxkamadda indhahaygan ku soo arkay qaarna hawlaha xafiisyada qurba joogta adag waxaan u soo doonanay warqadaha deegaanka dhalashada asli ahaan meeshan ka soo jeedno oo deegaana kan waxaa lagu soo daray xafiiska dhalinyaradii ka shaqeynaysay qurba joogta oo service fiican noo qabatay gacmo furan baa lagu soo dhaweeyay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Raxmo Muuse Good waxaan ka socdaa ama aan ahay xubnaha adeega u soo doontay xaafadda lixaad waxaan deganahay soonka 7 waxaan ahay arday dhigata dugsiga sare ee maamulka magaalada Jigjiga waxaan halkan u soo doontay inaan qaato dhalashada
hadda ka hor inkastoo hadda ka horba ayna dhib ahayn laakiin way noo kala fududahay oo hadda ka hor waxay ahayd inaad halkan warqad ka goosato warqadda markaad ka goosato foomka ah inaad dawladdii hoose aado in dawladdii hoose maxay ahayd lagu yiraahdo ama gelinka dambe soo noqo ama haba lagu siiyo markaas laakiin kol laba ay xaafadeedii ka fogeyd laakiin hadda xaafadeediina waa halkan baan ka soo yara baxaya halkan waan soo yara doonanaya maantana way ii dhamaatay wata dhalashadii waan qaatay marka waxaan rajaynaynaa in adeegyada kale dhimana sida insha Allah sida mustaqbalka oo kale in naloo keeni doono kaalintii dhalashada iyo adeegyadii kale ee hadda naloo soo dhaadhiciyayna wallahi ano dareemkii bulshada xaafadda lixaad matalaya aad buu dareenka nagu u faraxsan yahay waxaan rajaynaynaa in dhammaan bulshada dhan marka la yiraahdo dawladdii hoose waa laga soo wareejiyay xaqna la idinku soo dhaadhiciyay waa la soo dhaadhiciyay in halkan la wada imaan doono nin walba halkan ka samaysan doona rajaynaa insha Allah waxaa looga baahan yahay in ay uga faa'iideystaan ninba sidii uu rabay hadda tusaalean aniga oo kale dhalashada iskamaana qaadanayn waxaan rabay inaan ku qaato passport inaan ku samaysto marka bulshadii maxaa u dhib yaraanaya nin kasta danihiisii iyo wixii uu rabay ujeedadiisii inay u suurta gasho asagoon meel kale aadin asagoon maahe kii tusaale ahaan hadda kaba soo qaad dadka danyarta oo kale haddii uu soo tabco wixii uu ku samaysan lahaa dhalasho laakiin uuna taksi awoodi karin soo noqnoqosho iyo waxa hadda xaafadii loogu keenay way ooga fududahay baan leenahay marka shacabka inay ka faa'iideystaan baa looga baahan yahay waxyaabo fara badan dakhliga oo kale ganacsiga shirkadaha yar yar adeegyada noocaas ah ishaadu maxay qabanaysaa maxaad arkaysaa taana horta waxaan arkay wallahi xujadii oo kale in iyada laftirkeedii muddo badan la soo celinayay in hadda halkan 10 daqiiqo loogu dhameyn karaba oo xaafadii dhexdeedii ganacsigiina sidoo kale haweenkii iska wada baahnaa maxay ahaydey aan meel la garanayn marka qabalaha lixaad iyo qabalaha ma garanayn moogtahay qabalihii lixaad meel kale ma garanayaan xafiiska shirkadaha yar yar u doonta iyo waxa toona ma garanay laakiin hadda soon halaafiyadii markay dhaheen la soo baraarujiyay la yiri qabalihii baa yaa la idin keenay oo la idin soo dhaadhiciyay deymihii iyo waxa u baahnaydeen u doonta shalay ilaa maanta halkan aan joognayo wallahi waxa socday dad ama ha guranaya hataa kii aan mustawqa haysan laakiin ay soon halaafiyadu garanayaan inuu muwaadin dhaba yahay xaafadana ka tirsan yahay waa loo feegar sameeyay warqadna waa loo qorayay qofka muwaadinka dhabta ee la garanayo ee damiin haysta marka wallahi aad baan ugu faraxsanahay adeegyadaas degmooyinkii hareeyay kuwa maanta lagu daray oo yadihatay weeyo jigjiga waa darnabade halkan waxaan u imid shaqo ka socotay aad u qurux badan shalay laga bilaabo ilaa maanta horta waxa ka socotay deymo yar yar oo xafiiska ganacsigu bixinayay ta kale markaan liisanka waayo waan iska caajisi jiray waan iska joogi jiray imika laakiin markaan imaado aad bay noogu fudeydiyeen liisanka markaa dhabana loogu siinaya warqadaha shaabadana loogu jiidaya markaa saasaan u qaadanaynaa ta kale horta xafiisyadii oo dhan way noo soo wada daadegeen qabaleega iyagii bay yimaadeen dawladda hoose markaa tagno aan nidhaano waxaan samaysanaynaa xujadii oo kale muddo badan dadku horta iska farbadan yahay marka la isku wada geeyo magaalada oo dhan ay dawladda hoose dhigto rafaad bay ahayd haqrashana ma jiro runtii oo sidoo qof ugu horeeya warqada la soo qaadaya culays badan baa jiray taydii way ugu hooseysa salkay ku jirtaa ka soo qaad maantaan tagi barimaan tagi saadama salkay ku jirtaa warqadaydii magacayga ahayd marka aad bay u rafaad badnay laakiin iminka markii la keenay halkan xafiiska aad bay u fududaatay maalintii ugu horeysay ee la soo saaray baan xafiiska soo galay isla markii warqadaydii baan qaatay dawladda hoose markii qof la igu daray markii baa warqadaydii yaalay ee markii hore ku rafaaday la soo qaaday waa la keenay wallahi aad bay noogu fududaatay alxamdulillahi rabbil caalamiin qabalaha lixaad halkan waxaan soo doontay birsi certificate caruur wallahi sida la igu adeegay iyo yani sida naloo soo dhaweeyay markii hore markaan yani Karamardho hospital aan magaranaysaa dhalashada caruurta aan ka soo magaranaysaa dhameystirtay dawladda hoosaan imiday dawladda hoose markii la yiri magaranaysaa qabalahan u dhaadhicinay waxaan siri magaranaysaa way si magaranaysaa hawshii way adkaatay oo magaranaysaa qabalaha isma yani magaranaysaa si kale ka maleynay laakiin markii aan arkay magaranaysaa sidii la soo dhaweeyay sida la qaabilay sidii just in time la igu dhameeyay waxaan noqotay mid aan yani aan ku farxay
dadka kale yacni ma garanaysaa dhalashadooda carruurta yacni ka wahsanayana ay noqon doonto in mid aan yacni u sheego oo ay samaystaan oo ay ka faa'iidaystaan jaaniskan iyo dawladnimadan iyo nidaamkan isbeddelkan muuqda ee ma garanaysaa ka dhashay ma garanaysaa qabalaha ma garanaysaa Sorosidhisti haddaba daawadayaal maadaama ay sii badanayso bulshada ku dhaqan xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga isla markaana ay sameynayaan koror maadaama horumar baaxad leh oo ka socdo xaruntan deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga isla markaana ay ku soo biireen kumanaan kun oo muqmaal ah oo ka xoogsanaya dhismayaasha mashaariicda kala duwan iyo bulshada kale ee u imanaysa xagga ganacsiga ah ama adeega u soo doonta xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ee ka kala yimaada gobolada degmooyinka iyo magaalooyinka ka kooban yahay deegaanka Soomaalida haddaba iyadoo dawladdu ay ka duulayso baahida dhanka gaadiidka ah ayaa waxay xukuumaddu soo iibisay basas fara badan kuwaas oo isugu jira basas waaweyn isla markaana aad u dhaadheer oo ah kuwii u horeeyay noociisa ee la keeno magaalada Jigjiga iyo basas kale oo waaweyn iyo kuwa dhexe oo bulshada siiya adeeg hufan kuwaas oo isaga kala goosha xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Jigjiga isla markaana bulshada ay ku raaci karaan lacago ka jaban lacagaha kale ay ku raacaan basaska kale basaskan oo loo yaqaan gaadiidka dadweynaha ayaa bulshadu ay aad u soo dhaweeyeen maadaama ay ka heleen adeeg hufan isla markaana ay ku raacaan qiimo aad u jaban runtii magaalada Jigjiga aad bay u weyn tahay iyadoo oo lagu soo biiriyay basas waaweyn oo qaadaya halkii mar 250 qof taas oo dib u curashadu ay aad iyo aad wadanka u saameysay hase ahaatee bulsho aad u fara badanna ay ka faa'iideysatay ayaa waxaan dhammaan ummadda u hambalyeynayna in ay nabadgelyada soo dhaweeyaan gaadiidkii oo loo farabadiyay madaxweynaheena oo si fiican ugu hagar baxaya wadanka wax ka ogaana bal xaaladda gaadiidka kala duwan kuwa weyn ee dawladdu keentay iyo shaqooyinka taraafikada waqtiyada hore waxaa jiray inay traffic muun shaqayn jirin idinku baa shaqo qaban jirin hadda marka wada shaqaynta hadda idinka dhaxaysa bal iyo dadka dareenkooda sida wal qabsadeen shaqadan imika dadku bulshadu waa bulshadii hore maahay waa bulsho wada ilbaxday horumarka iyo dib u curashada la socdaan si fiican baan isla shaqaynaa xagga traffic iyo traffic shaqadooda haddaan kala hadlana waxaan ku wada shaqaynaa traffic aad buu noo nasiyay wuxuu aad noogu nasiyay wadooyinkii ugu waaweynaa ee baabuurta ugu badan ay marayeen ama highway-ga ahaa traffic waa ka shaqeeya annaguna intaa waxaanu taaganahay bas oo keliya wixii traffic amarkiisa diida ama la socon waaya ama mar trafficada iyo trafficka taaganna waa isku midun shaqadana lagu kordhana intaas si fiican bay noo nasiyay leerku waanu taaganaa annagu imika ilaalada korka ma ka ilaalinaa wadanku sintii hore maahay waa wadan dib u curasho gashay wadan dawlad cusub timido hal fiican oo si fiican nabadgelyada iyo horumarka uga shaqaynaysa annaga xitaa inaad dib u curashana lagu keeno waad ogtahay waad la socotaa dib u curashadaas wadanku wada jiraa horumarkaas dib looga wada shaqaynaya waxaa kaloo jira basas kale oo loo yaqaano minabasyada iyo gawaarida kale ee iyaguna ah bajaajta oo iyagu bulshada siiya adeeg taasoo waqtiyadii u dambeysay ay bulshadu ay ka cabanayeen baabuurtan loo yaqaano bajaajta oo aad ugu badan xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga isla markaana wada kasta oo aad marto aad arkayso iyagoo yaacaya haddana bulshada aan sidii loogu talagalay u siinin adeeg kadib markay ka qaadaan lacag kontraad ah haddaba shir arrimahan lagaga hadlayo ayaa loo qabtay mulkiilayaasha iyo wadayaasha baabuurtan yaryar ee loo yaqaano bajaaj taasoo sharciga lagu waafajinayo isla markaana loo sheegay ciddii amarkan fulin weyda in laga qaadi doono tallaabo sharci ah oo ku abboon haddaba waa kuwan qaar ka mid ah darawaliinta baabuurtan yaryar ee bajaajta oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan shuruucdan lagu soo rogay wallaahi run ahaantii waa qiimo aad u fiican xafiiska gaadiidku si fiican uu nolosha shaqeeya qiimaha uu noo soo dejiyay aad baan u faraxsan waa mid dantayda idinta bulshada ku jirto daawadayaal barnaamijkan oo kaliya laguma soo koobi karo horumarka baaxadda leh ee sii fidaya ee ku socda qaabka xawliga ah ee ka socda xarunta deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga taasoo soo jiidanaysa bulshada ka imanaysa dalka dibadiisa gudaha deegaanka iyo waliba dalka marka ay soo gaaraan xaruntan deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga iyo dadka kale ee sameynaya maalgashiga inta daawadayaal waxa ku dhamaaday barnaamijkeennii gaarka ah ee ku eegeynay horumarka baaxadda leh ee ka socda xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga oo haatanba lagu magacaabay Jigjigada cusub barnaamijkan waxaa idin soo diyaariyay anigoo ah wariye Axmed Kaabe xagga kaamarada ama film duubuhu wuxuu ahaa Maxamed Cabdalla xagga habeyntu waa Asad Rashiid iyo Cabdi Ciise isku dubaridkii waa Nuur Xuseen Xirsi intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono xaggayga waxaan leeyahay sida ay nabadgeliyo